Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooroon warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah Ra'iisul Wasaare Khayro kulan la qaatay wasiirka horumarinta iskaashiga ee dowladda Denmark agaasimaha maamulka ee hay'adda IMF oo taageertay dadaalada Soomaaliya ee ka gungaaridda qorshaha deyn cafinta Soomaaliya gudoomiye Basmo oo maantay agab nadaafadeed ku wareejisay 350 shaqaalaha waaxda nadaafadda iyo dirjiinooyinka si loo dardargeliyo bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho iyo dhalinyarada degmooyinka Hiilwaayo Shibis oo maantay ka qayb qaatay dhismaha wareegga derbiga dheer ee xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir oo lagu dhisayo ololaha isxilqaan intaas daawadayaal waxay hayeen qodobadii ugu dooroonaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir iminkan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo intaan ka faahfaahsan aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka horumarinta iskaashiga dowladda Denmark ayaa magaalada Washington ku yeeshay kulan looga hadlay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya iyo sida dowladda Denmark ay Soomaaliya uga taageeri karto in deynta laga cafiyo horaanta sanadka 2020ka wasiirka horumarinta iskaashiga dowladda Denmark ayaa ballan qaaday in dowladda Denmark ay sii wadayso taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya waxa uu amaanay guusha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay hanaanka dib u habeynta maaliyadda iyo dhinacyada kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo Washington uga qayb galaya kulanka miiska wareegsan ee looga hadlay deyn cafinta Soomaaliya ayaa horay kulamo kala duwan ula qaatay wasiirada maaliyadda Norway, Netherlands, Talyaaniga iyo madaxweynaha bangiga adduunka dhanka kalena agaasimaha maamulka hay'adda IMF ayaa kulan la yeelatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyadoo shaacisay in si buuxda ay u taageersan tahay dadaalada loogu jiro in Soomaaliya looga cafiyo deymaha lagu leeyahay horaanta sanadka 2020ka waxaan kulan miro dhal ah shalay xarunta dhexe ee IMF kula yeeshay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana ugu hambalyeeyay dhaqangelinta xoogan ee joogtada ah ee uu ku sameeyay qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha iyadoo ay jireen caqabado badan waxaan isweydaarsanay muhiimadda ay leedahay in deynta looga cafiyo sida ugu dhaqsiyaha badan Soomaaliya iyadoo la raacayo hindisaha wadamada saboolka ah ee aadka u deymaysan sidaas waxaa lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saartay hay'adda IMF war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay intii uu socday kulanka in ra'iisul wasaaruhu uu ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u habeynta iyadoo la raacayo barnaamijka SMB ee socda waxa uuna sidoo kale adkeeyay dhameystirka qorshaha qaranka sagaalaad ee dhawaan golaha wasiiradu ay ansixiyeen dhameystirka qorshaha horumarinta qaran iyo dib u habeynta waxa ay qayb muhiim ah ka yihiin shuruucaha hindisaha wadamada saboolka ah ee aadka u deymaysan taageerada IMF ayaa xoojinaya galaangalka dowladda iyo dadaalada lagu doonayo in bisha Febraayo ee sanadka 2020ka dowladda Soomaaliya laga nadiifiyo deymaha lagu leeyahay si ay ugu furmaan albaabada hay'adaha dhaqaalaha adduunka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmo Caamir Axmed Jakeeti ayaa maantay waxay agab nadaafadeed ku wareejisay 350 qof oo shaqaalaha waaxaha nadaafadda iyo dirjiinooyinka ah agabkan ayaa waxaa looga shaqeyn doonaa bilicda caasimadda Muqdisho gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmo Caamir Axmed Jakeeti ayaa kula dardaarantay shaqaalaha waaxda nadaafadda in ay ka shaqeeyaan bilicda caasimadda si loo nadiifiyo magaalada Muqdisho isla markaana ay Muqdisho dib ugu soo laabato haybadii ay lahayd magaalada Muqdisho ayaa waxaa olole nadaafadeed oo aad u ballaaran ka wada dowladda hoose ee Xamar gaar ahaan waaxda nadaafadda dowladda hoose ee Xamar taasi ayaana keenaysa in waaxda nadaafadda dowladda hoose ee Xamar shaqada lagu dhiirigeliyo isla markaana agabkan iyo howlo kale oo u fududeynaya gudashada waajibaadkooda la gaarsiiyo ugu dambeyntiina dhalinyarada degmooyinka Hiilwaayo Shibis ayaa maantay ka qayb qaatay dhismaha wareegga derbiga dheer ee xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir dhalinyarada degmada Hiilwaayo ayaa maantay xarunta dhalinyarada ugu deeqay ku dhawaad 200 oo bulukeeti iyo 10 kiish oo shamiinda ah sidoo kale dhalinyarada degmada Shibis ayaa iyana 100 bulukeeti iyo 5 kiish oo shamiinda ah ku deeqay xarunta dhalinyaradan gobolka Banaadir waxayna ballan qaadeen inay diyaar u yihiin intaas iyo in ka badan inay ku deeqaan gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir oo ka qayb qaadanaya ololaha dhismaha isxilqaan ee lagu dhisayo xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa kaga mahad celiyay dhalinyarada degmooyinka Hiilwaayo Shibis qaabka quruxda badan ay uga qayb qaateen ololaha isxilqaan ee lagu dhisayo xarunta dhalinyarada waxaana gudoomiyuhu sidoo kale
ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir inay qayb weyn ka qaataan dhismaha xaruntan oo muhiim u ah in ay noqoto xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir si ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ay u helaan xafiisyo ay ku shaqeeyaan. guud ahaan warkii idinkaga imaanay warbaahinta codka gobolka Banaadir xilligan waa naga intaa.